iyada oo uu bilaabmayo sanadka cusub ee 2021 ayaa ay bulshada Boorama ay si weyn ugu dhagtaagayaan qorshaha dawladda hoose ee Boorama u qorsheysan sanadkan iyadoo qorshahaasi laha deegaanka Boorama ay ansixiyeen sanadkii 2020 ay weli mashaariicda la qorsheeyay ay qaarkood aan la fulin haddaba barnaamijkan oo bilow u noqon doona ballanqaadyada maayirka Boorama ee aan fulin ilaa hadda 22 Noofambar sanadkii 2019 ayaa maayirka Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo safar shaqo ku tagay degmada Boon ee gobolka Salel ayaa waxa halkaasi ka dhagax dhigay saldhig boolis oo markaas loogu talagalay in laga maalgeliyo qasnada dawladda hoose ee degmada Boorama ayaa ilaa hadda aan ballanqaadkaasi uuna noqon mid fulay iyadoo waqtigaas imika laga joogo muddo gaaraysa sanad iyo dhowr bilood dhismaha saldhigga boolis ee laga hirgelinayo degmada Boon ayaa ku jiray miisaaniyadda 2020 ee dawladda hoose ee degmada Boorama oo la qorsheeyay in dhismahaasi la bilaabo 5 bishii koobaad 2020 isla markaana uu dhismahaasi uu dhamaado 2 bisha toddobaad 2020 ayaa arintaasi waxay noqotay mid lagu guurdaraystay hirgelinta dhismahaasi maanta ayaa ilaahay noo suurtageliyay inaynu dhagax dhigno sida ugu dhaqsaha badan lana aynu u bilowno saldhiguna shaqadiisii qabsada haddii ilaahay dhaado waxa weeye marka la leeyahay Blaze baa jooga magaalada Boon kol haddii meel loogu hagaaga ina jirin waa nin martiya ayuu noqonayaa sumcad ahaan iyo security ahaanba waxa weeyaan wax badan baa ka dhinaa laakiin maanta haddii ilaahay dhaado insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inuu noogu bilaabmo saldhigga aanu maanta dhagax dhignay baahiyaadka magaalada Boon koobu ka ah dawlad ka soo dhalata saldhig bay hadal hayn jirtay iyadoona dhisin bay haddana dhici jirtay garoonada diyaaradu waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha haddaba garoonka diyaaradaha Boorama oo aan in badan aan shaqeyn ayaa maayirka Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo sheegay in dayactir uu ku sameynayo garoonka diyaaradaha Boorama isla markaana ay bilaabi doonaan duulimaadyadii iyo shaqadii garoonka diyaaradaha Boorama balse arintaasi uu maayirka Boorama uu ballan qaaday ayaa noqotay mid aan fulin ilaa hadda oo garoonka diyaaradaha Boorama ayna jirin wax diyaaradaha oo ka soo degta Boorama labada xanuun ee ugu weyn ee maanta haya waxa weeye ee ay u baahan yihiin in laga daweeyaa wadada Djibouti iyo Boorama isku xidhaysa iyo airportkii waanu bilownay maanta haddii aad oran jirteen dawladda hoose cashuurun bay gurtaa wuxun bay cuntaa lacagtii baanu gelinay hadda taas marxad ka ahaada bajooga reer Boorama in badan baad ku caban jirteen airportkii baa caynkan iyo airportkii baa sidaan maanta waan bilownay waana gabagabo falaydkiina wuu imanayaa waxaan go'aan ku gaadhnay inaan dhigno roogii in la dhigo ka ila dawladda xukuumadda sare waanu ka balansanahay waa la iska kaashanaya haddii ilaahay dhaxdo bulshada Boorama oo si weyn ugu faraxday hadalka ka soo yeedhay maayirka Boorama waqtigaasi ee ku aadanaa in uu shaqada bilaabayo garoonka diyaaradaha Boorama ayaa markii dambe noqday kuwa ka niyad jabay natiijada ka soo baxday ballanqaadkii uu maayirka Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo noqday mid lagu guuldaraystay haddaba daawadayaal la socda qaybta labaad ee barnaamijka ballanqaadyadii maayirka Boorama ee aan fulin ilaa hadda